maanta waa maalintii ciidul fitriga halka aynu joognaana waa xarunta agoonta ugaas khaliif ee magaalada beledweyne waxaan halkan kula kulannay ilmihii agoonta oo ay farxadii wejiyadooda ka muuqato si wanaagsan u ciidaya maraan wax ka weydiinay cidda ka qayb qaadatay farxadda ciidooda ay noo sheegeen in hay'adda Khayrdoon ay u soo dirtay lacag $500 ah taasoo qayb weyn ka qaadatay farxadda maanta. maamulka iyo agoontuba waxa ay u mahad celiyeen walaalihii ka farxiyay agoonta waxayna codsadeen in dadaalkooda ay sii laba jibaaraan oo ay kafaalo dhameystiran gaarsiiyaan waxaana hadaladoodii ka mid ahaa بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قلمت أنا أقول جوجنا حرمت أقونت وجاز خليل بلدوينه وقربيه كم وضع قيب كم إذا أقونتي وعن أمهد علينا هي أدى غيردون فانديشن ونسوق أرسيسي $500 وسوء أدى وقت كهبون زكاة الفطر أما آخر رمضان كا وعيدة ولبا وحن أدى أمهد علينا هي أدى وحن كعصنا إن أي المعصم كفالها السنين أو لقوة dad muxsiniina waxay isku soo dardareen in ay dhabarka u dhigtaan waa 130 gabdhood iyo 70 wiil waa agoonku wuxuu ka faalaysan yahay $30 100 lagu dhigto 30 waa $3,000 waxaan ka rajaynaynaa in aad baahidaas agoonta aad dabooshaan $30 cunugu wuxuu noqonayaa quraac iyo qadiyo casho dugsiga quraanka iskuulkii haddii uu dan yar iyo kabaha uusan gadan karin ama daawo gadan karin tamaysa laga bixiyaa waxaan idinka codsanaynaa walaalayaalow idinkoo u tartamaya qowlka nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam inaad ka faa'iidaysataan aniga iyo agoonka qofka kafaala qaado jannada ayaanu ku nahay deris waxaan idinka rajaynaynaa lacagta hadda na soo gaartay oo $500 inaad ka soo badisaan oo aad u soo dadaashaan ilmahan oo aan kafaalo lahayn insha allah waxaan idinka rajaynaynaa inaad ilmahan baahidooda aad dabooshaan waa $3,000 bishii waxaan idinka rajaynaynaa insha allah inaad u tartantaan inaad birito qiyaamo aad nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam aad jaaral noqotaan insha allahu tacaala waxaan aad u rajaynaynaa inaad codkeenna aad qaadaan oo aad tixgelisaan ilmahaas aabbayaasha ilaahay naga hormariyey oo ilaahay nagu imtixaamay annagoo u istaagnay daryeelkooda waxaan u baahan nahay dhaqaalo haddii aan nahay maamul ama macallimiin ama shaqaalaha intooda kale aan magacooda ku hadlaya waxaan idinka rajaynaynaa inaad dabooshaan ilmahaas baahidooda oo bishii $3,000 ah ilaahay ha idin waafajiyo khayrkaas waxaan idin leenahay u tartama khayrkaa loo tartamo waa wixii beri lagu fakan lahaa qiyaamaha ama lagu noolaan lahaa ama darajo lagu gaari lahaa weeye insha allah waxaan idinku boorinaynaa inaad camalkaas khayriga ah aad u soo tartantaan oo soo gaarsiisaan gacantiinna agoontaas oo baahi badan leh baahida badan maxaa ah in la daboolo baahidooda oo ah cunugiiba $30 bishii waa $3,000 khayr idinka rajaynaynaa codkeena inaad qiimaysaan aakhiradiinna aad ku talagashaan in ilaahay idinka abaalmariyo camalkaas khayriga ah wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu